ليبيا horay waxay u ahayd gobol uu dagaal dhimasho leh ka jiro dhawaan waxa sare u sii kacay qatarta iyadoo dalal badan ay ku soo biirayaan sida Turkiga, Masar, Ruushka, Faransiiska, Imaaraadka Carabta iyo Mareykanka waxay u egtahay mid ka sii dartay waana sida ay dhabti tahay marka hore aan idin faahfaahiyo waxaynu ku bilaabanaynaa wixii ugu dambeeyay Turkiga ciidamo ay u dirayaan Liibiya halkan war weyn ayaa ku jira ciidamada waxa ka mid ah kuwa Suuriyaan ah BBC-da waxay sidoo kale soo xigatay ila Tripoli ku sugan dagaalyahanada mucaaradka Suuriya ee Turkiga isbahaysiga la ah ayaa Liibiya loo dirayaa Ankara waxay sheegtay in ay taageeradeeda military tahay inay caawiyaan dawladda qaramada midoobay taageerayso ee galbeedka ee uu hogaamiyo ra'iisul wasaare Fayez al-Sarraj dhinaca kale qandaraaslayaasha militariga Ruushka ayaa dhanka kale taageeraya maamulka Liibiya ee bariga ee horkacayo ciidamada fallaagada ee hoostaga General Khalifa Haftar sida Suuriya oo kale Turkiga iyo Ruushka waxay kala taagan yihiin labada dhinac oo iska soo horjeeda wadamadan ku lugta Liibiya muhiim ay u tahay in ay mustaqbalka saameyn ku yeeshaan loolanka quwadaha awoodda ku leh gobolka dhammaan wadamadaas midbadana gaar ah ayuu Liibiya ka leeyahay Imaaraadka Masar iyo Jordan waxa ay taageerayaan General Haftar iyaga oo siinaya ciidamadiisa fallaagada hub iyo taageero kale qadar waxa ay taagan tahay dhanka kale waxayna dhabarka ka riixaysaa dawladda qaramada midoobay taageerto iyadoo la safan isbahaysigeeda Turkiga loolanka wuxuu gaaray dagaal kasta oo gobolka Masar xad ayay Liibiya kala leedahay bariga waa arrin la xiriirta ammaanka qaranka waxa jirta cabsi ah in dagaalku uu xadka ka gudbo horaba mid adag ayay u ahayd haddana way ka sii dartay Faransiiska oo Liibiya la lahaa xiriir taariikhi ah waxa uu kordhiyay caawinta General Haftar gumaystii hore Liibiya Talyaaniga uu ka hor yimid Faransiiska waxa uuna taageeray dawladda qaramada midoobay taageerto Mareykanka meel fog kama taagna mushkiladan waxa ay la dagaalamayaan haraadigii kooxda la baxday dawladda Islaamka kuwaas oo ka dhashay intii dagaalka uu ku jiray wadanka haddaba maxaa ka quseeya duniduna maxay ka doonaysaa waxaa jira sababo badan Liibiya waxay leedahay kaydka saliidda ee Afrika ugu badan waana dalka ugu muhiimsan suuqa gaaska dabiiciga sidoo kale wadanka waa halka ay ka soo galaan muhaajiriinta Afrika ee Yurub u socda waxayna soo maraan xeebta dhirirkeedu yahay 2000 oo kiiloomitir ee Mediterranean-ka soo ifbixida IS iyo ururada kale ee xagjiriinta ah waxa ay noqotay naxdin kuna noqotay dalalka dariska la ah dhammaan wadamadaas aan soo sheegnay iyo kuwa kale oo aan ka hadal dagaalka Liibiya wuxuu leeyahay wajiyo badan umana eka in waqti dhow uu xalismi doono